kal sii horreysay kol ariga bannaanka laga dhigay magaaladu xal waare lagama gaarin haatanse halkii hore ka roon ayaa la filayaa. Waxaan ka mid ahay dadka jecel inay magaaladu cagaar noqoto oo green ay noqoto, magaalooyinka Soomaaliya ugu cagaaran ay noqoto si ay u soo baxdo bilicda caasimaddu. Ariga uma arko caqabadaha ugu waaweyn oo ka mid ah waxa hortaagan inay garow cagaar noqoto. Ariga saaristiisina runtii ma taageersanayn in magaalada laga saaro iyadoo la heli karay option kale oo lagu bedelan karo. Si loo cagaariyo magaalada waxa ku imaan kara laba qodob oo kaliya hadii la yiraahdo ariga caqabad ku ah. Kow geedka markii la beerayo oo kale in loo sameeyo shabaq ama silig 2 mitir ama 1 mitir inta geedku baxayo. Taasi waa xal waana la tijaabiyay dhir noocaas lagu beerayo magaalada ah. Arina ma cunin arina ma baabiin. Energy-ga ariga lagu saaray oo awgeedo marka banaanka la saaray oo isaga qaarkiis xitaa ari magaalo oo banaanka u barta aan dhirta markuu xanuunsaday dadkii oo ka daba tagayay shaqo badan oo dawladda hoose gelisay keeni kartay xal ka fiican kaas oo ama shaqo ka fiican ay keeni kartay. Runtii markaan waxaan u arkaa kow magaalada Garowe hadii la rabo inay green noqoto kow waxa green ka dhigi kara dadka reer Garowe. Dadka reer Garowe inay qaataan fariinta ah inay magaalada cagaariyaan. Qof kasta uu geedkiisa beertaa, gurigiisa ku hor beertaa, sirigiisa ku samaysto ama shabiqiisa wuxuu heli karo waraabsadana dariskiisana u sheega. Waa arki kartaa 5 guri oo isku xigo 5 geed ku beeran tahay ama 5 geed leh isku qurux iyo isku bahalkii isku bilic maahan. Marka waxaan dhihi lahaa dadka Garowe horta fariinta marka hore inay qaataan waa labo istaraatiijiyada iyo policy-ga dawladda iyadana waxa laga rabaa inuu noqdo mid active oo shaqeynaya oo shaqooyinka waaweyn oo priority ay noqdaan. Laakiin inay u waxayaan waxa loo yaqaano in hal mar la yiraahdo ariga la saaraya dhir baa la beeraya shaqana la qaban. Taasi magaalada caasimadda kuwa imaan karto inay cagaar noqoto. Mustaqbalka waxaa la filayaa in Garowe ay ka mid noqoto magaalooyinka ugu quruxda badan Soomaaliya. Waa haddii ay ku socoto dhabaha hadda haysa ee ah kobaca dhanka wadooyinka iyo sidoo kale ganacsiga oo ah mid si xawli ah ku koray. Balse hal caqabad weyn ayaa jirta taasi oo haddii xalkeeda laga gudbo ay magaaladan sidii rabto noqon karto. Waa in ariga iyo dhirtu kala badbaado. Xal waarana arintaas loo helo. Cali Dhigad, Jubaland TV, Garowe.